kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan waa rasmi Somali TV kusoo dhawaada warka kooban qodobada maanta aad ku daawan doontaan waxa kamid ah hay-adda nabadgelyada sirdoonka qaranka NISA oo soo bandhigtay fanaan qirtay inuu ka tirsan yahay xarakada al-shabaab warar dheeraada ayaan idinkaga hayaa duqeymo culus oo xalay ka kala dhacay gobolada Shabeellada Hoose iyo Jubbada Dhexe qaar kamid ah musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha Galmudug oo sheegay in aysan qayb ka ahaan doonin doorashada ka dhacaysa Galmudug ciidamada ammaanka maamulka Puntland oo xalay howlgalo kala duwan ka sameeyay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari dowladda federaalka Soomaaliya oo heshiis la saxiixatay 9 dowladood oo ka tirsan caalamka waxaan idin hayaa cudurro aan la aqoon oo ka dilaacay dalka Shiinaha qodobadaasi iyo wararkii ciyaaraha ayaad ku daawan doontaan warka kooban ee rasmi Somali TV haddii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqato subscribe saar oo furo gambaleelka si uu kugu soo dhaco wararkii ugu dambeeyay ee gudaha iyo caalamka isku soo noqod wanaagsan daawadayaal waa arbaco taariikhda waxay ku beegan tahay 22 January 2020 waxaan ku bilaabayaa duqeymo culus ayaa xalay ka dhacay gobolada Shabeellaha Hoose iyo Jubbada Dhexe qasaare ayayna geysteen duqeymahaasi warar kala duwan ayaa ka soo baxay duqeymo xoog leh oo xalay ka dhacay deegaano ka tirsan gobolada Shabeellaha Hoose iyo Jubbada Dhexe kuwaas oo la beegsaday dagaalamayaal ka tirsan shabaab deegaanada duqeynta ay ka dhacday waxay kala yihiin Hargeysa Yarey Saakow iyo deegaano u dhaxeeya Jilib iyo Bu'aale oo ka tirsan Jubbada Dhexe duqeynta koowaad ayaa ka dhacday Hargeysa Yarey waxaana la sheegay in halkaas lagu burburiyay xarun ciidan oo al-shabaab ku lahaayeen duleedka deegaankaasi waxaana la sheegay in ay duqeyntaasi ku dhinteen dagaalamayaal ku sugnaa xiradaasi dhanka degmada Saakow waxaa lagu duqeeyay xarun kale oo al-shabaab ay ku lahaayeen waxaana la sheegay in xiradaasi uu ku sugnaa ama uu ku keysanaa hub badan isla markaana duqeynta lagu burburiyay sidoo kale inta u dhaxaysa degmooyinka Jilib iyo Bu'aale ayaa waxa la sheegay in duqeyn kale oo ka dhacday lagu dilay sarkaal sare oo la sheegay in uu aad uga dhawaa hogaamiyaha al-shabaab Ahmed Abu Ubayda kaas oo lagu magacaabi jiray Abu Abdullah sida ay warbaahinta u sheegeen saraakiil ka tirsan sirdoonka Soomaaliya dhinaca kale deegaanka Sablaale ee gobolka Shabeellada Hoose iyadana waxa xalay ka dhacday duqeyn culus taasi oo la beegsaday xubno ka tirsan xarakada al-shabaab hay-adda nabadgelyada sirdoonka qaranka NISA ayaa soo bandhigtay fanaan qirtay inuu ka tirsan yahay xarakada al-shabaab hay-adda nabadgelyada sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA ayaa waxa ay xalay barteeda Twitter-ka ku baahisay muuqaal kooban oo muujinaya fanaanka Abshir Gaarane Axmed oo qiranaya inuu ka tirsan yahay xarakada al-shabaab shalay si gaar ah waxaan u baahinay xog ku saabsan in la qabtay fanaanka ka tirsan shabaabka isla markaana uu sidaasi isagu qirtay NISA ayaa qoraal kooban oo ay soo raacisay muuqaalka fanaanka waxay ku tiri Abshir Gaarane Axmed oo ka tirsan kooxda fanka gobolka Banaadir una qaabilsanaa shabaab xuraanka iyo maaliyadda ayaa dabagal dheer kadib NISA gacanta ku soo dhigtay iyadoona loo gudbin doono hay-adaha garsoorka sida NISA ay sheegtay Abshir Gaarane ayaa isagoo qiranaya kamid ahaanshihiisa shabaab waxa uu yiri al-shabaab waxa aan u shaqo bilaabay sanadkii 2013 shaqadeeduna waa fanaan waxaan ka shaqeynayay gobolka Banaadir qaybtiisa fanka iyo suugaanta al-shabaab waxaan u qaabilsanaa buu yiri macluumaadka iyo dhanka maaliyadda bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Abshir Gaarane Axmed kooxdan al-shabaab waxaan la shaqo bilaabay 2013 shaqadeedu ani waxa waa fanaan waxaan ka shaqeeyaa gobolka Banaadir qaybtiisa fanka iyo suugaanta ayaga waxaan u qaabilsanaa qaybta macluumaadka iyo dhanka maaliyadda sida maaliyadda إلهي أريداي لما أنتي نفتيداي أديقا لحادكي كل الله بمبيركو لدي وحدة لقي واي أنتو أديقا هن كلها سيمي أديقا هن كلها سيمي إلهي أريداي لما أنتي نفتيداي أديقا لحادكي كل الله بمبيركو لدي وحدة لقي واي أنتو أديقا هن كلها سيمي
ku laasimayey adiga qaar ka mid ah musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha Galmudug ayaa ku dhawaaqay inaysan ka qayb qaadan doonin doorashada ka dhacaysa Galmudug. Afar musharax ayaa qaadacday doorashada madaxtinimada dowlad goboleedka Galmudug kadib markii ay sheegeen in dowladda Soomaaliya ay afduubtay hanaankii doorashada Galmudug. Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odoba, Cabdullaahi Faarax Weliye, Kamaal Daahir Xasan Guutaale iyo Cabdi Dheere oo dhammaantood u sharaxan xilka madaxweynaha Galmudug ayaa si wadajir u shaaciyay go'aankaasi. Sidoo kale musharaxiinta ayaa guddoonka baarlamaanka Galmudug ku eedeeyay in uu kala qaybiyay guddiga doorashada madaxtinimada maamulkaasi isla markaana uu hal dhinac la saftay sida darteedna aan lagu kalsoonaan karin doorashada hal dhinac in ay qabtaan. musharaxiinta ayaa guddoonka baarlamaanka ugu baaqay in uu dib u mideeyo xubnaha guddiga doorashada madaxtinimada Galmudug si loogu kalsoonaado shaqada guddigaasi uu hayo. dhalinyaro al-shabaabnimo lagu eedeeyay ayaa lagu xiray xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. ciidamada ammaanka dalka Kenya ayaa howlgal ay xalay ka fuliyeen xaafadaha Islii ee magaalada Nairobi waxa ay ku qabteen daraasin dad ah. dadkan oo tiradoodu gaaraya 43 qof waxa ku jira 38 arday kuwaasi oo wax ka barta dalka Kenya. hay'adaha dambi baarista wadanka Kenya waxay sheegtay dadkaasi looga shakiyay in ay qaadanayeen tababar la xiriira waxa loogu yeero argagaxisinimada. booliska Kenya ma sheegin waxay ahaayeen dadka kale ee howlgalka lagu qabtay oo ay haatan baaritaano ku wadaan. ciidamada ammaanka Kenya ayaa muddooyinkii dambe kor u qaaday howlgallada ammaanka la xiriira kadib weerar lagu qaaday saldhigga ciidanka Mareykanka iyo Kenya ay ku leeyihiin gobolka xeebta Lamu halkaas oo ay shabaab ku dileen 3 Amerikaan ah. xaafadda Islii ayaa waxa ku badan Soomaalida ku nool dalka Kenya. daawadayaal mar kale aan idin xasuusiyo qodobada warkeena ku jira. hay-adda nabadsugadii sirdoonka qaranka NISA oo soo bandhigtay fanaan qirtay inuu ka tirsan yahay xarakada al-shabaab. warar dheeraada ayaan idinkaga hayaa. duqeymo culus oo xalay ka kala dhacay gobolada Shabeellada Hoose iyo Jubbada Dhexe. qaar ka mid ah musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha Galmudug oo sheegay in aysan qayb ka ahaan doonin doorashada ka dhacaysa Galmudug. ciidamada ammaanka maamulka Puntland oo xalay howlgallo kala duwan ka sameeyay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. dowladda federaalka Soomaaliya oo heshiis la saxiixatay 9 dowladood oo ka tirsan caalamka waxaan idin hayaa cudurro aan la aqoon oo ka dilaacay dalka Shiinaha. kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha. waxaan ku bilaabayaa kooxaha Chelsea iyo Arsenal ayaa dhibcaha ku qaybsaday kulankii adkaa ee London Derby kadib markii ay ku kala baxeen barbardhac 2-2 ah xilli ciyaartana ay qayb ka ahayd kulamada 24 ee horyaalka Premier League. qaybta hore ee ciyaarta waxaa lagu kala maray 1-0 ay ku hogaaminaysay kooxda Chelsea. daqiiqadii 26aad xidig reer Brazil ee David Luiz ayaa qaatay kaarka roosaha. kooxda Arsenal ayaana sidaas ku noqotay 10 xidig oo kaliya. daqiiqadii 28aad kooxda Chelsea ayaa heshay rigoore waxaana gool u bedelay Jorginho. ciyaarta ayaana sida ku noqotay 1-0 ay ku hogaaminaysay kooxda Blues. qaybta labaad markii la iskugu soo laabtay labada dhinac ayaa waxa ay sameeyeen qaab ciyaareed aad u fiican iyagoona abuuray fursado badan oo gool loo filan karay. daqiiqadii 63aad kooxda Arsenal ayaa heshay goolka barbardhaca waxaana dheesha 1-1 ka dhigay Gabriel Martinelli. mar kale daqiiqadii 84aad kooxda Chelsea ayaa hogaanka u qabatay ciyaarta waxaana 2-1 ka dhigay Cesar Azpilicueta iyadoona goolkan uu ka caawiyay saaxiibkiisa Callum Hudson-Odoi. laakiin Arsenal ayaa mar kale la timid goolka barbardhaca waxaana 2-2 ciyaarta ka dhigay Hector Bellerin waxaana goolkan ka caawiyay saaxiibkiisa Lucas Torreira. ugu dambeyntii ciyaarta adkeyd ee London Derby waxay ku soo dhamaatay barbardhac 2-2 ah ay isku dhaafi waayeen labada kooxood ee Chelsea iyo Arsenal. kulamada kale ee xalay haddaan ku sii socdo Manchester City ayaa guul dirqi ah ka soo gaartay kooxda Sheffield United oo ay ku booqatay garoonka Bramall Lane kadib markii ay kaga soo adkaatay 1-0 ciyaar ka tirsaneyd kulamada 24 ee horyaalka Premier League. qaybta hore ciyaarta ayaa lagu kala maray barbardhaco eber-ebra. qaybta labaad markii la isugu soo laabtay labada dhinac ayaa waxay sameeyeen qaab ciyaareed aad u fiican iyagoona abuuray fursado badan oo gool loo filan karay. daqiiqadii 73aad kooxda Man City ayaa hogaanka u qabatay ciyaarta waxaana 1-1 ka dhigay ciyaarta Sergio Aguero waxaana goolkan ka caawiyay saaxiibkiisa Kevin De Bruyne. ugu dambeyntii ciyaarta
ayaa kusoo idlaatay eber iyo hal ay ku adkaatay kooxda martida ahayd ee Manchester City. taageerayaasha Arsenal ayaa ku digtay xidigaha kooxda Chelsea ee N'Golo Kante iyadoona lala barbar dhigay Steven Gerrard kadib markii uu siibtay kulankii Arsenal waliba sababtu u noqday in gool laga dhaliyo goolka koobaad ee uu dhaliyay xidiga Gabriel Martinelli. Chelsea ayaa hogaanka u qabatay ciyaarta daqiiqadii 28aad kadib markii uu Jurgen hore u dhaliyay kadib markii David Luiz kaarka cas loo taagay, laakiin kooxda Lampard ayaa haysan kari weyday goolka kadib markii Kante siibtay taasi oo xidiga Gabriel Martinelli ogolaatay in uu dhaliyo goolka barbaraha. kadib dhacdadaasi taageerayaasha ayaa uga digay Kante iyaga oo barbar dhigay Steven Gerrard iyo dhacdadii gashay taariikhda kubadda cagta ee uu halyeeyga Liverpool siibtay kulan ay kooxdiisu la ciyaaraysay Liverpool. taageere ayaa Twitterka ku soo qoray miyuu Kante siibtay oo sameeyay isla sidii Gerrard. mid kale ayaa qoray Kante haatan waxa uu sameeyay sidii Gerrard. dhib badana Kante waxa uu sameeyay sidii Gerrard. ciyaartu waa 1-1. waxa kale oo dhaca marka aadan ciyaarta dilin ayuu taageere kale qoray. taageere kale ayaa yiri Kante waxa uu noqday Gerrard haddii aad garanayso waxa aan uga jeedo. Kante ayaa gabi ahaanba isku bedelay Gerrard. taageere kale ayaa sidaas yiri. ugu dambeyn kulamada caawa jira Manchester United ayaa caawa garoonkeeda Old Trafford ku martigelin doonta kooxda Burnley maalmo kadib markii ay guuldaro xanuun badan kala soo kulantay Liverpool oo ay axadii kula soo ciyaartay garoonka Anfield. kooxda martida ah ee Burnley oo toddobaad farxad ku jirta ayaa u soo safartay magaalada Manchester iyadoona raadin doonta guul la mid ah tii ay Leicester City dhibcaha kaga qaateen axadii. tababaraha Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ayaa ku dooday shirkaasi jaraa'id ee shalay in kulankii ay soo guuldareysteen ee Liverpool ay garoonka ku jireen ilaa daqiiqadihii ugu dambeysay indhihiisuna ay arkayeen horumar ka muuqday kooxdiisa marka laga yimaado guuldarada, waxaana cudurdaarkaasi oo shidaal uga dhigi doona ciyaartooygiisa si ay 3 dhibcood ugu qaadan karaan kooxda Burnley. United oo ay ruuxeen hadal haynta suuqa ee laacibka reer Portugal ee Bruno Fernandes iyo dhaawaca Marcus Rashford waxay caawa u baahan tahay guul qasab ah si ay u xajisan karto kaalinta shanaad. haddii laga adkaadana waxa suurtagal ah in ay hoos ugu degto booska maadaama ay jiraan 3 kooxood oo wax ka yar 3 dhibcood u soo jira. ciyaartooda waxay soo gali doontaa caawa 5:15 daqiiqo saacadda geeska Afrika ama 5 saac iyo rubi. garoonkuna waa Old Trafford. intaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa xubinta ciyaaraha. nabadgelyo. ugu yaraan 9 ruux ayaa la xaqiijiyay in ilaa haatan ay u geeriyoodeen fayraska cusub ee ka dilaacay dalka Shiinaha isagoona ku sii fidayay magaalooyin kale oo hor leh. mas'uuliyiinta waaxda caafimaadka dawladda Shiinaha ayaa sheegay in kiisaska fayraska ay gaarayaan 440 kiis. sidoo kalena fayraskan la sheegay in gudaha dalka Shiinaha uu ka gudbay isagoona gaaray dalal ay ka mid yihiin Thailand, Japan iyo Koonfurta Korea. dawladda Shiinaha ayaana wali awood u yeelan in ay cadeeyaan fayraskan iyo waxa uu yahay iyo waliba sida looga hortagi karo. akhyaartana daawanaysa intaasi ayaan jeclahay inaan ku soo gabagabeeyo warka kooban ee Rasmi Somali TV. waad ku mahadsantihiin daawashada. fadlan subscribe saar oo sii share garay muuqaalka. waxaad ka heli kartaa Rasmi Somali TV wararkii ugu dambeeyay gudaha iyo caalamka.